magaalada Johannesburg ee wadanka Koonfur Afrikana waxaa heshiis ku kala saxeexday ganacsatada yaryar ee Koonfur Afrikaanka ah iyo kuwa ajaanibta oo ay qayb ka yihiin Soomaalida waxaana heshiiskaasi goobjoog ka ahaa wasiirka ganacsatada yaryar ee dalka Koonfur Afrika faafahinta warkani waxaa halkaasi inooga soo diray wariyaha Aalaba nooga soo warrama dalka Koonfur Afrika kulankani oo ahaa kulan casho sharaf ah oo isugu yimaadeen wasiirada horumarinta ganacsiyada yaryar ee Koonfur Afrika Marwa Lindiwe Zulu ururada ganacsatada yaryar ee Koonfur Afrikaanka ah iyo kuwa jariiraha Soomaalida Itoobiyaanka Bangladeeshka Pakistaanka oo ku midoobay ururka horumarinta ganacsiyada tuulooyinka ee Koonfur Afrika ayaa lagu kala saxiixday wada shaqayn buuxda oo yeeshaan labada dhinac ee Koonfur Afrika iyo dadka ajaanibta ee ku sugan tuulooyinka fogfog ee dalka Koonfur Afrika wasiirada horumarinta ganacsiga yaryar ee Koonfur Afrika Marwa Lindiwe Zulu oo iyada furtay heshiiskan taariikhiga oo ay gaareen ganacsatada yaryar ee dalkeeda iyo kuwa ajaanibta ah ee ka dhax ganacsada tuulooyinka iyo magaalooyinka ayaa sheegtay in loo baahan yahay in midnimo iyo wada shaqayn buuxda ay yeeshaan qaybaha heshiiska kala saxiixday waxayna ballan qaaday in dawlad ahaan inay taageerayaan walba oo la shaqaynta sidii loo gaarsiin lahaa ganacsiyada tuulooyinka aanay gaarin waxyaabaha looga baahan yahay oo ay gaarsiiyaan dadka ajaanibta ah oo ugu horeeyaan Soomaalida laguna dadaalo sidii looga bixin lahaa shakiga soo dhaxgalay dadka ajaanibta iyo dadka u dhashay Koonfur Afrika ayna u noqon lahaayeen dad walaalo ah maadaama ay isku baahan yihiin have got a right to keep their families, have got a right to feed their families, have got a right. kulankani oo ahaa mid heshiis lagu wada gaaraya ayaa waxaa dadkii ka hadlay kamid ahaa Cabdirasaaq Cali Cusmaan Macaanjaan oo kamid ahaa mas'uuliyiintii ka hadashay kulanka kuna hadlayay magaca jaariyada Soomaalida ee Koonfur Afrika wuxuuna warbaahinta si gaar ah uga warbixiyay heshiiskan taariikhiga ah oo goobjooga ka ahaayeen gudoomiyaha xaafadda Soomaalida ee ka degantay magaalada Johannesburg ee Mayfair iyo wasiirka ka socday dawladda Koonfur Afrika waxaana fursad loo siiyay inay ka hadlaan dadkii ajaanibta ahaa maadaama Soomaalida ay ugu badan yihiin madaxda jaariyada Soomaalida ee Somali Community waa kan Cabdirasaaq Cali Cusmaan Macaanjaan oo sharaxaya waxyaabihii heshiiska lagu kala saxiixday bismillaahir rahmaanir rahiim kulankan caawa wuxuu ku saabsanaa heshiis u dhaxeeya mujtamaca South Afrikaanka ah ee ku ganacsada meelaha locationada loo yaqaan ama meelaha fogfog iyo mujtamaca kale ee aan u dhalanin wadankan ay isugu jiraan Soomaalida Itoobiyaanka iyo Bangladeeshta uu matalayo urur la yiraahdo Township Business Development oo ay ku heshiinayaan sidii ay uga wada ganacsan lahaayeen si nabad ku jirto meelaha ay ku ganacsadaan Suldaan Ibrahim Qaxwo oo kamid ah ganacsatada yaryar ee magaalada Johannesburg oo shirka ka qayb galay oo aan wax ka weydiinay aragtidiisa heshiiskan ayaa sheegay in Soomaalida uu wax badan u soo kordhin doono hadii la meel mariyo business career ganacsatada yaryar sida Bangladesh, Ethiopia, Somalia, Pakistan waxa ugu weynay oo maanta meesha ka muuqata Soomaaliya Abdi Hassan TV caalamiga Universal Johannesburg